لولا هدي الله أن نجانا بالإسلام كنا غرقا في الأوهام والعصيان والآثام. لولا هدي الله أن نجانا بالإسلام كنا غرقا في الأوهام والعصيان والآثام. فالحمد له سبحانه والشكر له سبحانه. فالحمد له سبحانه والشكر له سبحانه. طول الأيام طول الأيام طول الأيام طول الأيام. في بدء الأمر تعلمنا علم التوحيد وأقمنا الصلوات وصمنا والقلب سعيد. في بدء الأمر تعلمنا علم التوحيد وأقمنا الصلوات وصمنا والقلب سعيد. وسألنا الله المولى أن يكرمنا برضاه. لولا هدي الله أن نجانا بالإسلام كنا غرقا في الأوهام والعصيان والآثام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. walaalyaal kusoo dhawaada mu'tamarkeenii shanaad ee Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Holland iyo nawaaxigeeda. barnaamijkii oo wax yar isbedela uu ku dhacay awgeed ayaan hadda insha Allah waxaan ka faa'iideysanaynaa inaan maaragtay culimadeenan ka faa'iideysano iyo su'aalaha oo aadka u badan ee la soo gudbiyay. insha Allah hadda inta salaada inooga hadhay oo taqriiban 45 daqiiqo waynu ka faa'iideysan doonaa culimadeena si aynu maaragtay su'aalaha inooga jawaabaan. waa la soo qadayn doonaa markaa kadib qadadaas oo maaragtay free oo maaragtay walaalada kamida oo maaragtay duco wanqala uu sameysanayo. kadibna waan isku soo noqon doonaa oo waxay noqon doontaa su'aalaha wixii baqiya ee haray dardaarankii culimada maaragtay iyo ducadii iyo khatinkii haddii Ilaahay yiraahdo. su'aasha ugu horeysa oo Sheekh Mustafa aan rabnay inaan weydiino wuxuu leeyahay saa'ilku sheekh waxaan deganahay tuulo qiblada aanan garanaynin ayuu yiri meesha ay iga xigto. haddii qof muslina oo kale aan weydiin lahaana qof muslina ilama degana meesha. sidoo kale waxaan sameeyaa buu yidhahdaan meeshii ay ila muuqatuun marba aan u tukado. arrinkaas diintu maxay ka qabtaa maxaana samayn karaa? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلهي قرآنك وحين وأمري فحيثما تولوا وحلينا أمري مالك استين وشوقنا فولوا شطرة وحاوتشي ستنبال ليلي كعبد حقي كاحكتو قفكم مبنانا سوغان وحبد دالين راضع عينين ونسكيد هذا كل بدن كيونا يلا نقطه إن سكتشيستا ما هو صحة صحي وحويان صلاة الشروط دي أركانتي دي هياتك دي وناقد وحكوتش راين وقفك وتشيستو هلكي ربي يلي وتشيستو كعبضة ما أنت عسر غني لتشوقنا نوفض الضي سيدا كعبضة الله هلا دور هالميدون بات70 كرتا كو هداد waxaan wax laga baadho haysato ama GPS yar ha noqdo ama mobile oo GPS ku jira ha noqdo kuwaas way ku xadidayaan dhanka uu ka xigta qibladu. haddaad internet haysato wuu ku xadidaya waxaad gashaa qibla locator meesha la yiraahdo. waa website dhan oo loogu talagalay qofka muslimkii meel kasta uu joogo. qibla locator ku wuxuu ku tilmaamayaa street ka marka aad taagantay halka aad uga jeesanayso. qibla locator www.qibla locator ayaad gali markaad gashana magaalada aad joogto aad ku qori wadanka aad joogto magaalada aad joogto xataa magaalada wuxuu ku weydiinayaa street ka aad ka taagan tahay xaafada numberkeedu inta ay street ka caynkaas aan deganahay. Google kumbu soo saariyo wuxuu ku tusi doonaa qolka aad ku jirto dhanka looga jeesanaya dhanku yahay. qolka aad taagan tahay street ka xaggan ka xigu mu kooran doonaa dhinaciisa eeg ama ka xagga ka xiga dhinaciisu ka xiga oo wax fudud isagana haddaad baadho. haddaad Google Earth ka caadiga gasho waad ka soo heli karaysaa. يعني maanta wasaaisha waa la fudaydiyay intay fudayda dhaaftay ba meel kasto aad taagantay mobilka dhexdiisa aad ka arki kartaa computerka aad ka soo dhaxaki kartaa dhan kasta uu jeedid
xataa haddaad jihaadkun kala garatid adeed ka bax xaggay ka soo baxdo iyo xaggay ka dhacdo koonfur iyo waqooyi haddaad kala garatid yurub marka la joogo qibladu waxay kaa xigtaa maxay koonfur bari halkay ka soo baxday iyo koonfurta dhexdoodun u jeeso yani markaad bariga garatay koonfurna garatay labadaa dhexdooda koonfur bari bay kaa xigtaa haddaad markaa inuun jihada subax eegta halkay ka soo baxaysiyo halkay ka dhacdo aad maalin eegto waxaad garan kartaa iyadana dhanka koonfur iyo dhanka waqooyiga baad kala garatay bari iyo koonfur dhexdooda u jeeso marka waxaan uga jeedaa dee waa dadaal xumo un waxa ku hayaa iyo qiblo garasho waa maaha qofka muslimka ee maanta dhulkan jooga wuu baadhi karaa xataa dadka badh baa waxay calaamadiyeen maxaa la yidhahdaa dhishashkan yaryare meelahan ku jeeda iyo satellite-ka inta badan kuwanay dhegaystaan baa dhankaa xiga inkastoo ay ku xidhan tahay satellite-ka aad adigu rabto inaad dhegaysataa dhanku xiga ay ku xidhan tahay oo qaar xagga kaleba ujeeda ay jiraan laakiin inta badan kuwan af carabiga lagaga hadlayo waxa kan satellite-kooda dhankaa xiga dadka badh baa markaa waxay dhahdaan dhishaskuuna eego xaggu u jeedo ayaad u jeesan kartaa calaa kullin qofka maanta dadaalo waxaan is leeyahay haddaad inuu yaro dadaasho waad helaysaa qibladii dhankay kaa xigto marka ilaahay xaqahayna waafajiyo dadaal oo ku dadaal inaad hesho qibladaadi saxayd wallahu aclam جزاكم الله خير الجزاء شيخ سؤال لبعض أو شيخ بشير شيلكو صوتا وحولي سعيدكو شيخ درس كيغا وادد مسلم وحينا كسو أديكتان دكامدا آن أهين دكامدا مسلمين تا وأي كسو إبسدان هيلبكا لقدا إيا ديغاغا هدي أي كانان معونو أي قشنكا يان كودرا مركا شيخ دنبي أيا إيغا ساران ميا سؤاشا وحان كوحكسين لها سؤال كلو عام ومرو البصور نقطو sheekh maxay tahay shuruuda amba hilibka xalaasha ah siin ku gartaanba sidee hilibka xalaasha ah maaragtay lagu cunaa umuman بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد درسكو وواجبات كينا صار مكمدي هاي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تجارك كغسو أروري ومتواتر ويان aad bay u badan yihiin in la ilaaliyo xuquuqda jaarka nabiga calayhi salaatu wasalaam inta uu ka hadlay walidaalika imaam adahabi raxmatullahi tacaala caleyh kitaab buu ka alifay xuquuqul jaar oo ugu magac daray axaadiista kusoo aroortayna uu keenayo raxmatullahi tacaala caleyh xaqa inaga saaran dariska muslimka ah waa laba xaq weeyaan awal waa daris thaaniyanna waa muslim hadduu qaraabo yahayna waa saddex xaq hadduu gaal yahayna waa hal xaq saddex labo iyo hal bay kala yeelanayaan xaqa kaa saaran baa wuxuu yahay inaad u dardaarantid wixii khayr iyo wanaag ah xumaantan inaad ilaahay subxaana wa tacaala iyo macaasida inaad u tilmaantid inay tahay waxaan wanaagsanayn hadday iyagu kasoo adeegteen meelaha aynan garanaynin inaad u sheegtid hadday kuu keeneenna inaad tirahdid waxaan xalaal ma ah sidaa iyo sidaasaana la sheegay ama sidaasay xaaraam ku noqotay inaad u caddaysid yaana burhaan aad ula timaadid haddii laakiin intay ku keeneen aad qaadod qashinka isaga tuurto maalin kalena ay keenaan ood qashinka ku tuurto iyagana ay jaahil ka yihiin adigana aad leedahay waxani waan ogahay inay xaraam yihiin maxaad ugu sheegi weysa amaam allah su-aal kuu taalla weeyaan jala wacala shayga xalaasha ah maxaa lagu ogaanayaa ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin xalaashuna way caddahay xaraamtiina way caddahay hadday noqon lahayd waxa la cunayo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kuluu maxaa la yidhi mima dukira isma allah wixii waa inay xalaal yihiin أهل كتاب كأنه نح جونا الله سبحانه وتعالى ذبائح ذو ذي وحي يجو جورعان ولا ينو بنيه وحنا أيمان تمر سوق يا لما وحي يجو جورعين با حالة ذو محيته هاي وحي يجو جورعين ما تكله كم بيني قال وح جورعية عدول بو شقالك اللي جنايا أهل الكتاب هدو شقالك هي هي وضدك شقينا يهين ضد أهل الكتابة وحنا على به إنه قل لحيت لكن أهل الكتاب ما intaynu ognahay marka sidaa darteeda wixii aad hubtid qof muslima inuu gowracayna cun waxaad hubtay inuu ahl kitaab gowracayna cun wixii aan inta ahayna iska dhaaf maxaa yeelay
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له إن يرى حرامك وقتك وحي كينيسا إن الإلهي سبحانه وتعالى دعاء ذي بأقبل مركين الله يسكى إلالي إن شاء الله إلهي نحن كبرين جل وعلا إنه حلاشة إنه قوضيه حرمتني إن نغفقيه بعد المشرق والمغرب والله أعلم بالصواب جزاك su-aashaku sheekh salaada waxaan ku jiraa buu yidhi kaam salaadana masaajidka igu dhowey 25 mirir ilaa 30 mirir ayuu ii jiraa waajib ma igu tahay inaan masaajidkan kusoo tukado waxaananu samaynaa buu yidhi inaanu kaamkan ku jirno aanu si jamaaca aan ku tukano su-aasha labaad ee uu ku daba xigsiiyey waxawaan aadaankii haddaanan maqlaynin waajib miyay igu tahay weli inaan salaada jamaacada aan tago على كل إن هدوم ساجد كفوقي هاي أصلا جماعة تكن كريسان جماعة دي نتكذا مركا مساجد كتير كرتان نتاجا أنتي أنا مساجد كيدين صورة قلا هنا نتكتانا إن الجماعة أكتانو يدين بقى دمتان وضد مسلمان نقطان ويسكو حرتان بقى مهمة والله أعلم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا سؤال شكله وشيخ بشير شو كصوتا وقبر وحيل هذا الشيخ أنا وحان هاي قبر سوماليات لكن أيان كلا تجني عرور بان أودالي المهنا مسؤولية دودي إلى ما إلاليو المها وحان مركا أنو الشيكيا دبعتدي نصو أنو كلا تجني أرنكاسي دب ملاذ هاي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. طلاق واح إلهي سبحانه وتعالى بنيه لكن ودي بدي هذا ندنك كله حال النبي يقول حين نوغشكي صلوات الله وسلامه على إبليس إنه عيد مدي صدره شياطين تأه إن أي وحسو في السهاديان مركي يسون نقضان وحي في السهاديان أي كور رمان قاركود إن يرهدان أنا وقفك اللي يدري وحنكو حنبارة إنه خمر عبو وحنكو حنبارة إنه أوزينيستو وحنكو حنبارة إن مدول بوحي يرهدا وحو ماذا يلين وحو ماذا سمينين كأدم بيا عمد كمدا وحي يرهدا أنا أقول لبدي قفي إسقابي وان كلا دري كاسو وحي يرهدا أذيك ويان هاوش قفك قبتي لنعيق صوفا ليس عرشي يسي وكفر ليسيا وحسيدا أوي لينا وحكا لماها لبدا قفوي الدريرين دقال كودنا وحدا مانا يما كبدا ولا شينا وحي تيري وحي لباتا انا دحمري بان عرورتا او شيغا wax wanaagsan ma diin ahaanna uma wanaagsana caqliyanna uma wanaagsana cawaaqibta dambe ilmahana uma wanaagsana maxaa yeelay ilmahaas aad oga sheekaysay xumaanta aabahood uu sameeyey waxaan shaki lahayn inay caasi ku noqonayaan adiga isaga wixii idin dhex maray iyaga shaqo kuma laha haddaad se gaarsiisay waxay keenaysaa in ay nacaan aabahood ama waxaaba dhici karta dhanka kale inay aabihii la saftaan oo adiga ku nacan waxay ahaataba labada waalid koodii yiraahda carruurta oga sheekeeya dhibaatada qofka kale ee waalidka ay sidaa ku nacaan muddo dabadeed isna waa nacayaan caasinimadaasa marka soconaysa hadday caasi iyagu noqdeen iyagana waxaa khasaba awlaadooda inay caasi ku noqoto awlaadoodana sidaas oo kale marka inaan waynu naqaanaa qisadii macruufka ahayd ninkii aabihii intuu meel keena kaga dhaqaaqay isna markuu weynaaday wiilkiisii unbaa meeshii geeyay ayar kaga dhaqaaqay isagana marka ma wanaagsana waa khalad weeyaan wax wanaagsanna ma aha ilaahayna kaga cabso subxaanahu watacaala wixii aad u sheegtayna sidaad kaga tirtiri karaysid waa hawl adiga kuu taalla waajib ku saaran cinda allahi jala wacala wallahu aclam bisawaab جزاكم الله خيرا شيخ سؤال شكله شيخ مصطفى كسعوتا سؤاله كل دونا صون نقضي أيام ميدان كردجنا وحي تاي عموما قفك دمر كا دختر أمبا نيرس ما نكون كرتا تيولوجيا هي إن مارك ترق يا دمر با أي تاي إن أي مارك تاي أي وحقوق بطو
sidoo kale waxaa maaragtay wiil kale ayaa isaguna weydiinaya oo leh meelaha qaarkood markaad neeris aad rabaystay inaad noqotid waxaa lagu dirayaa dadka waaweyn oo inaad u qubaysid iyo waxyaabo saas la mid ah markaa diintu maxay ka qabtaa taas sheekh garan maayo cid kale la weydiiyo بسم الله waxaa in uu qofku su-aasha qeybteedii dambe ahayd in uu khidmeeyo dadka waaweyn haddii culimadu waxay yiraahdaan uu jinsigaasi u khidmeynaya jinsi la mid ah nin raga weeyaan qof rag u khidmeynaya dhibaato ma leh qofkii dumarka ahna dumar inay u khidmeyso dhibaato male weyn laakiin marka la yiraahdo nin raga loo dirayaa qof dumar ah ama qofkii dumarka ahaa baa nin raga loo dirayaa xaraam weey ma banaana tan labaad waxa meesha taalla ay tahay in shaqada naf ahaanteeda qofku iska ilaaliyo in allah li intuu ka carari karo uu ka cararo wax kale u raadsado sababtay tahay waxaana wanaagsanayn bay salka ku haysaa waa laga wanaagsan yahay asal ahaantuun baa loo leeyahay xaraam miya maya xaraam weey ma dhihi karayno laakiin waa laga wanaagsan yahay ka carar intaa ka carari karaysid wax kaloo xalaal ah raadso والله أعلم بالصواب. جزاكم الله خيرا. سؤال كله وحي كسعة شيخ مصطفى walaal soo qoray waxayna daba socotaa kelimadii sabaxiyaadkii sheekh uu jeediyey wuxuu yiri sheekh madinaay muslimiinta Soomaaliyeed wax badan ayaa inaga burburay tii ugu dambeysay aynu haysan diinteeni bay ahayd waxaan arkaysaa dad iska fatwoonaya iyagoo aan cilmi lahayn arinkaas maxaad aad ka oran lahayd fatwada waxa xaq u leh muftiga dadka ahlul lil fatwa fatwaadkuna dawaa naazilaat dhacayo wax laga sheegayo qof aan hubin waxaan uu sheegayo inay tahay wixii Ilaahay rasuulkiisu sheegeen uma banaana waxaanu maalinta tilmaamnay in Ilaahay uu rasuulkiisu ku leeyay wala taqfu ma laysa laka bihi ilm haddii nabi maxamed lagu yiri raacin waxaan aqoon u lahayn ama aakhiro eeshiya dhagtiya wax walba waa lagu weydiinayaa de hadday garaad iyo ku day aniga waxa ay la tahay waxaan u maleynayaa tahay nabi maxamed ba malay baa la oran lahaa iyo waxay kula tahay dadka u sheeg Ilaahay duu nabigiisii u diiday mala iyo waxay la tahay qof kale malihiin aanu meel fiican ku tagaynin waa la garanayaa marka ma banaana waxaanad garanaynin inaad sheegto waana beenta u weyn been la sheego yani been Ilaahay laga sheegay dema been ba ka weyn qof bin aadam waxaanu oran hadaad ka sheegto wax lagu oranayaa been buu iga sheegay Ilaahay waxaanu oran hadaad ka sheegto ka war iyo rasuulkiisa waxaanu oranin been ka weyn ma jirto marka in Ilaahay iyo rasuulkiisa been laga sheegaa ma banaana wallahu a'lam جزاكم الله خيرا سؤال أفعل بالقصة قري شيخ بشير كسعوتا شيخ وحوري ماركتي هذا بريها دنبي وحابتي دتكي أو ماركتي نين ولبا وكلية هي طريقه هل كان ويان أم بطريقه هل كان ويان مركا عموما سيدي لجو أوجان كرا طريقة قف كمسلم كأيتاي إنه مرو دينتي سو كبرا لها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما طريقة صحة وكان النبي عليه الصلاة والسلام ونولي يمد الله نؤير سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رسولك وحكى لنا ولما إيمان صلوات الله والسلام عليه إلا وحي نولي يمد وحي بوها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وحي يقولنا لبا طرف بولها لبا قيبود بوها الكتاب والسنة كتابك الله سبحانه وتعالى وكان ينهي سنة صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام واتينا دحت الله قفك وحان انت اهين قف ددك ugu yeeray laga yeeli maayo qofki inta in noogu yeerana cidu doonaba ha ahaade waa ka dhageysanayna waxaan leenahay samicna wa ata'na wallahu a'lam bis-sawab جزاكم الله خيرا الشيخ مصطفى الشيخ وحو سائل كان هو شيغ ماركتي ذنوب واوين isagoo galay wuxuuna yiri dunuubtii aan galay marba waxaan arkaa aniga hadana naftii ay rabto oo ku sii socoto sideen iskaga xafidaa maxaan adigu la talin lahayd
qofka mu'minka waxa saaran inuu ilaahay u toobad keeno in aadamka dambiga uu ka dhacaa laakiin waxa waajib ku ah inuu rabbigu u noqdo subxaanahu wa tacaala uu garto macsidan iyo meesha ay geynayso haddaad naarta iyo jahannamo iyo dhulka laysku cadaabaya xasuusato waa adagtahay qofku inuu dembi ku dhiirado yani haddaad gurigaaga dabka yaalla farta geliso waad garanaysaa inta aad cabaadi doonto ka waran qofka naar taasi ay tahay 70 jeer mid lasoo qaboojiyo lasoo maydho lasoo hagaajiyey ku dhiiranayo kusii socda qofka mu'minka waxaa habboon inuu garto ilaahay abuuray halkuu uga mahad celin lahaa inaanu caasinin ka waran qof hadduu maanta wax ku siiyo oo berri wax ku siiyo calaykum assalaam oo saa dambe wax ku siiyo qofkaasi inaad u mahadnaqdo mooyaane lagama yaabo inaad wax ka sheegto waayo doraad 100,000 buu ku siiyey maalintii ku xigtay 100 kaluu ku siiyey maalin walba lacag ku siiya qofka adigu xataa hadduu xumaleeyay waad aamusaysaa waayo waa qof ku roon ilaahay subxaanahu wa tacaala khaaliqee ku abuuray ee ku nimceeyey ee indhaha ku siiyey ee carabka ku siiyey dhaga ku siiyey beer ku siiyey wadda ku siiyey noloshan oo dhan kuu hibeeyey inaad haddana wixii uu ku siiyey cagsigeeda ula kacdo oo halkaad u mahad celin lahayd aad tidhaahda ilaahay waa kugu caasinayaa wixii aad siisay oo runtii faalxumadeeda waad garan kartaa marka waxaynu u baahanay koow qofka muslimka waxaan kula talinayaa ilaahay weynidiisa xasuuso nicmada uu ku siiyey iyo abaalku kugu leeyahay xasuuso cadaabka dambeeya iyo qiyaamo iyo jahannama iyo maxaa la yidhaahdaa jidka siraad iyo waxa mushkilad dambaysa xasuuso qofka mu'minkii hadduu waxaa xasuusto wuxuu noqonayaa qof dariiqa saxa mara midna ogsano waa ilaahay toobad yani ha ka quusanin marnaba mahmaa dambi kaa dhacay waxaad ogsoonaataa rabbigaa haddaad usoo noqoto inuu kugu farxayo haddaad ilaahay usoo noqoto subxaana wa tacaala inuu kugu farxayo walidalik buu nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiiskii bukhaari ku yaalay nin baab dambaabay dabeetana wuxuu yihi yaa rab inii adnabtu fakfir ilaahay waan dambaabay ilaahay u dembigayga ii dhaaf dabeetana ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu yidhahdaa calima ana lahu rabban wuxuu gartay inuu rabbi leeyahay dembiga wax ku ciqaabo dhaafana waa kuu dembi dhaafay baa ilaahay yidhahdaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haddana mar kaluu dembi ku dhacaa dabeetana wuxuu yidhaha yaa rab adnabtu ilaahay waa dembaabe ilaahu dembigayga ii dhaaf ilaahay baa haddana mar kale wuxuu yidhaahdaa addoonkaygu wuxuu gartay inuu rabbi leeyahay dembigana dhaafa kuna qaada waa kuu dembi dhaafa wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haddana mar kaluu dembi ku dhacaa halkii buu taaganya wuxuu leeya yaa rab ilaahu dembigayga dhaaf waa dembaabe rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhaahdaa addoonkaygu wuxuu gartay inuu rabbi leeyahay dembiga ku qaada dhaafana waa kuu dembi dhaafay icmalu maa shiit yacni qofkan soo noqoshadiisaa dhab ahayd oo marka macsi ka dhacdaba si dhabu rabbigii ugu toobad keenayay waanu isku dayayay inuu nafta xakameeyo laakiin haddana mar kale macsi ka dhacaysa marka qofka mu'minka waxaan kula dardaarmayaa ninkii 100 dilay ee la yidhi toobad ma leedahay markii dambe ninku uu sheegay inuu toobad leeyahay wuxuu u sheegay toobadda inuu leeyahay iyo siday ku fiicantahay toobad keentuba toobad inuu leeyahay wuu sheegay wuxuu yidhi adiga iyo ilaahay yaa idin kala dhexgeli kara wuxuu kaloo ku yidhi meeshan aad joogto dad xun baa jooga iskaga tag meel heblaayo tag dad wanaagsan baa jooga oo ilaahay kuwa la caabud yacni haddaad rabto dembi inaad ka toobad keento dadkiisaa la gooyaa haddaad rabto inaad sigaarka iska dayso sigaar iyo cabka ka hadh haddii kale markay mar agtaada budh ka siiyaanba waxaad soranaysaa wartalo ku daba qabata hadna haddaad laakiin iskaga tagto qaar aan cabbaynba iska raacdid naftu ku xasuusin mayso kuu sheekayn mayso idan haddaad khamri cabbi jirto ka toobad keento kuwa khamriga cabba iskaga hadh ninkaasi wuxuu saalixahi wuxuu u tilmaamay ninkaa 100 dilay ee uu leeyahay toobad keen war meeshan ka tag buu leeyahay dayda iyo dad xun baa joogo dadku un laayo waad ku darsamaysaa
waxaad qabataa meel aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caabudayso daydag waa mooryaante waxaad qabataa meel aad ilaahay ku caabudo dad saalixiini joogaan waxaan uga jeedaa markaad dembiga ka baxdo waxaad isku daydaa asxaabtiisi iyo kooxdiisi iyo dadkiisiina inaad dhaaftid markaas waad adkaysan karaysaa qof adag baad noqonaysaa haddaad laakiin kooxdii lasii joogto oo ay maanta kugu dul cabaan oo tirahdaan uu cabbi maayo berri kugu dul cabaan oo tira cabbi maayo maalinta dambe ku odhanaya beegan yar dhadham waa iska ciid maanta marka waxaa kuu roon dadkana inaad bedesho wallahu aclam جزاكم الله خيرا شيخ سؤال كله شيخ بشير شيل كسعطة oo ku saabsan dhinaca guurka sheekh guurka sideen maaragtay aan u helaa qof munaasaba dariiqa loo marayaana waa sidee maadaama ay da'yartu mu'tamarka aada ugu badan tahayna kalima tawjiihiya xawla zawaaj jazaaka allah khayr بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد guurku waa nisfu diin waa cifa iyo dhowrsanaan waa kan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ammaanay kitaabkiisa waa sunna kowni ah waana sunna tashriici oo ilaahay inoo jideeyay subxaanahu wa tacaala waana fudud yahay maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax culus inaguma waajib yeelinba yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra nabiguna calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadiisa la hadlaya cuthmaan ibnu cafaan iyo cabdullahi ibnu mascuud iyo raggii la midka ahaa raggii dhallinyarada ahaa khaasatan ee muhaajiriinta isagoo la hadlaya ayuu ku oranayaa macshara ashabaabi man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj in la guursado markaa waa shay matluub ah weeyaan waxaa la guursadayana nabiga inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tunkaxu lmar'atu liarbac afar xaalo midun baa loo guursadaa iyo wixii lamida qofka dumarka ah wixii kaloo dhan waa wax zaa'il oo tegaya oo zuulaya hal keliya unbaa ah shayga baaqi noqonaya waa ta diinta lagu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam fadfir bidaati diini taribad yadaak qolooyinkii gabadha dhalay ee laga soo doonanayana nabigu calayhi salaatu wasalaam iyagana fahantooda waa la hadlayo waa irshaadiyey waa u tilmaamay isagoo odhanaya idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqah fazawijuuh hadduu idin yimaado qof aad ku kalsoon tihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa u guuriya hadday sidaa tahay marka qofka muslimka inuu guur raadiyo hadduu heli karayaba ee dhallinyarada yaa macshara shabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj aabihii iyo hooyadii waalidkii dadkii mas-uuliyiinta ahaa inay dhallinyarada u guuriyaan weliba waqti hore loo guuriyo waa wax wanaagsan weeyaan waayo haddii gabar loo guuriyo xumaan inuu aadaa ku adkaanaysa mas-uuliyad buu xambaarayaa qof mas-uula buu noqonayaa waqti uma helayo meelo inuu ku dayaco uma helayo waqti inuu meelo kala aado isagoo dhalinyaro caruur dhalayaa caruurtii inuu koriyaa khasab ku ah inuu diintoodii ilaaliyaa khasab ku ah waalidkiina waa inay la garab istaagaan nasiixa iyo waxqabad laakiin in la yiraahdo maya intuu jaamacad ka dhammaynayo gabadha intay xagga ka dhammaynayso xagga intay ka yeeli doonto iyo wixii la mid ah waa laga wanaagsanya qofki isagoo guursaday buu naxna qabsan karayaa laakiin in shardi looga dhigo qaar baa gabdhahoodii oo laga soo doonay waxay leeyihin maya waa intay jaamacadda ka dhammayso inay sugtaa oo haddaba haddii intay jaamacadda dhiganaysa ay zinaysato ka waran marka soo adigu amaam allahi mas-uulka matid adaa u diiday ilaana qofka wanaagsan marka waxaad ku garanaysaa awalan waa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigaa kuu doortay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qofkaa dooran lahayd oo wuxuu ku leeyahay fadfir bidaati diini taribad yadaak amaa adiga ilaahay bari subxaanahu wa tacaala isagaa alle subxaanahu wa tacaala odhanaya udcuunii astajib lakum inuu ilaahay qof khayr oo wanaag oo diintaada iyo adduunkaaga iyo aakhiradaadaba u wanaagsan inuu ilaahay kuu doorto subxaanahu wa tacaala maxaa yeeley waxaa ilaahay inoo tilmaamay subxaanahu wa tacaala wax badan oonu jecelnahay oon khayr inoo ahayn wax badanoo necabnahay laakiin khayr inoo ah ilahay isagaa yaqaana nagama naqaano meesha kuu khayrkaa ma garan karaysid gabadhuna ma taqaano ninka u wanaagsan ninkuna ma yaqaano gabadha u wanaagsan sidaa darteeda waxaa la inoo sharciyeeyey salaatu listikhaara
baryada ilaahay badi istikhaarana tuko qofka aad doonaysid intaadan isku xambaarinna ilaahay bari subxaanahu watacaala waxaan idin dardaarmayaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam khulaasadiisa wuxuu oranaya faman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa qofkaanan intaasoo dhanba awoodi karaynin waxaa laga rabaa inuu soomo laakiin qade iyo qoraac iyo cashana waa cunayaa dhalinyarana waa ahay waa caafimaad qabaa calooshii hadday buuxsantay shahwadii intee la geynayaa hawadii meel la geeyo male waa in meel xun lagu daadiyo marka nacuudu billah calayhi bisawm fainahu lahu wijaa soom baa lagaa rabaa inaad soontid isniinta iyo khamiista nabigu waa soomayey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ayaamu lbiid waa soomayey macnaha waa bishii barkeedii weeyaan 15 maalmood waad soomanta maxaa yeelay isniin iyo khamiis haddaad soonto bishii meeqaa ku jira isbuuc walba waa 2 maalmood bishii meeqay noqonaysaa 8 maalmood 3 maalmood ayaamul biid awge 11 macnaha taqriiban waa nisf shahr weeyaan soomkuna wuxuu leeyahay fadaa'il ilaahay baa yaqaan subhanahu wa ta'ala tirada ka badatay cibaadatu la mathila laha nabiga orunay sallallahu alayhi wasallam wala cibaado wax la mid aynan jirin qofka saa'imkana dacwadiisa waa mustajaaba markuu afurayo iyo waqtigu suxuranayo waqtiyadaas oo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala waqtiyadu waxa ajiiba weeyaan ilaahay bari subhanahu wa ta'ala ilaahayna waa ku ajiibaya wallahu a'lam bis-sawaab جزاكم الله خيرا شيخ سؤال كذا وش مصطفى كسعوتا وحلا هاي سائلات قبلها وحلا شيخ وحن ربينا نحكيو محرم كأنك حيسن لهانا قرش ومهيو محادي قلتلين لهاي ما حكيا مش ماس كدايا والله أعلم قبل مسلمات ده محرمكو وواجب سارا يعني محرمك حيسته محرمك وحانا الله فرينو إلى لي ونولو شهده كقيب قاطو حاجكو مال فضود معها مال فضود قبل كيلي هيدا يماري كرتا معها يقف دايتونا ونبي عليه الصلاة والسلام وحكوا لها وينك يدانو دقال تقنو جهاتنو idinku jihaad kala leedin buu yiraan daga aandi ku daadanin xaj tagabuu nabigu ku yiri xajku waa jihaad walidalik ma fududa ana gabadha muslimadda waxaan kula talin lahaa inay sugto inta ay ka helayso mahram ama hantida ay ka helayso ama mahram sidiisaba hantidiisa haysto raaciyo ku sadaqadaysanaya ay ka helayso ولماذا بربات الماما هذه جماعة من النساء ثقات أو داء أو لوك السوي وعين كان ولا الراعي كره لكن عصري كان مفضوضة روح نقول طالين لها أنت أي محرم سوي سينيس كسكتو أنت أي محرم هليس والله أعلم جزاكم الله خيرا شيخنا سؤال شنو شبي الشيخ وصعوتا وحولي إلى كحفظ الشيخ وحن ربا إن كويديو waxaan hayaabay tiri gabadhu hooyaday oo da' waxaan siiyaa 200 inta kalena waxaan ku bixiyaa nolosheena mar walbana way habaaraysaa oo waxaan ka baqayaa naftaydan uga baqayaa habaarkeeda haddaan gooni u dajiyo ka war bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd ma yahayeelin walidkaagu waa walidkaaga wuxuu yahayba inaad bari u noqotid ilaahay baa ku faray subhanahu wa ta'ala rahmukallah ba'da ibadati allah jalla wa ala shayga labaad ee waajibka kugu ah waxa weeyaan waalidki waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayn ihsana ihsan baa la yiri ihsaankuna waxa weeyaan samafal inaad u dhagan nuglaatid inaad hadii waalidki uu noqdo waalid macangaga والد أن ونكسنين حبارت مية ولا جو ونكسين إن لهبار أولادي إن الله أنت تكد ذلك رئيسيد ويوجه الرئيسة أذيك إلهي أبري سبحانه وتعالى والد كاجين إصلاحيه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة إلهي أبري سبحانه وتعالى
inuu xumaantan ka qabto habaarkan inuu ilaahay ka joojiyo inuu ilaahay carabkeeda ducada baro ilaahay u bari subxaana wa tacaala si khaalis ah waa qodobka labaad ee haddaad heli karaysid inaad diinta ilaahay subxaana wa tacaala ay dhagaysato oo la baro naf ahaanteeda qof waayeel iska oon waxba garanin inay tahay baa dhici karayse inaan waxba la habaarin khaasatan awlaadaada inaadan habaarin maxaa yeele nabiga inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laa tadcuu calaa anfusikum walaa tadcuu calaa awlaadikum naftiina habaarina awlaadiina habaarina xoolihiina habaarina in habaarku ma wanaagsana ta saddexaad ee meesha ku jirtaa waxay tahay haddii waalidkaado intaa ka soo baxay weli uu ku habaarayo adiga maxaa kula gudboon daacadiisaa kula gudboon mar walba waajibkaagu walad la dhalay baa tahay awlaad la dhalay baa tahay waa lagu dhalay mar walba waajibkaa ilaahay ku saari subxaana wa tacaala waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana hadday dhibaato kugu dhacdo waa qada iyo qadar ilaahay baad arkaysaa ay musiiba ma wuxuu leeyahay anigu bas way cibaadadii ilahay waa joojinaya maad leedahay macquul miyaa taa maya xikma min xikam illaahi jala wacalaa weeyaan adiguna haddii waalidkaagii uu sidaa noqday daacadiisii ma joojinaysid waxaan ilaahay caasinimadiisa ka ahayn sideedaad u wadaysaa habaarkaa isaga ah ee waalidku uu habaartamayo xaq ma aha hadduunan xaq ahayn ma kugu dhici karaa ma ku asiibi karaa laba u kala qaad waa dhici kartaa inuu kugu dhaco waa dhici kartaa inuusan kugu dhicin hadduu kugu dhacana cinda allahi agtiisa wax ku yaalla male oo dembi ah waa uun ilaahay subxaana wa tacaala imtixaan uu kugu imtixaanayo waalidkaaga daacadiisa waalidkiibaa ku habaaray adigoona waxba samaynin habaarkiibaa sidiisii kuugu dhacay adigu daacadaada la imo maxaa u daliil ah qisada jurayj ayd wada garanaysaan ninkii caabidka ahaa reer bani israa'iil ee nabigu inooga sheekeeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hooyadii waa tii ay habaartay habaarkiina waa ku dhacay laakiin nin wuxuu ahaa wanaagsan cinda allaahi subxaanahu wa tacaala dembi kuma lahayn laakiin habaarkii waalidka waa ku dhacay waana lagu imtixaanayay adiguna waa dhici karaysaa in lagugu imtixaano habaarkana uu kugu dhaco laakiin ilahay agtiidii subxaanahu wa tacaala wax dembi ah kuuma yaalaan intaasaan dhihi lahaa gabadha walaasheenna meel gooni haddaad dejiso dhibaato ka badan baa dhacaysa daacadii waalidkana ma ah ilaahay wuxuu kaa rabayna maaha subxaana wa tacaala u dhaganoglow ilaahay u bari waalidka ilaahay subxaana wa tacaala inuu hagaajiyo uma waalidkiina fahantiisa in la baro waxaan inaysan sharciyan islaamka aynan ku habboonaynba ثالثا هذه كوكو على مصيبة دي وحي لما يدهن السيدة سينقونيسا والله أعلم بالصواب. جزاكم الله خيرا شيخ. سؤال شن كلا وش مصطفى كسعوتا ومعلم دكسي أو يري القرآن كيان دقا لو قدنا اللاند كان ما كان عرور أنا في الصومالي قرني إنه ولا إيه كان يمحن سمية. دذال أفكار برو والله أعلم. جزاكم الله خير. سؤال شكله الشيخ مصطفى الشيخ بشير الشيخ حفظه الله كسعته وحلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب على الشيخ هبكي وجو هبون والدعوة لوف في دين كرا. بسم الله. دعوة وجيه بدنتها هداد واحتقانا واحتقانا قدبي هدانا وحقوننا بوحبره حوله دو إلهي كسيه سبحانه وتعالى انت انا قارين دينتي إلهي سبحانه وتعالى عجل ذا قادية وحياوك لا سميسية قارسي محيا لو من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بعدها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا قفك وناك سمايا كنا عمل فلادت كان قارسية أجر كيسو لي إن الله لي أنت قضية أجر كذو يرانيا أيضا عندنا أجر كذي لقى نسقامينين أجر كقوال لها عند الله جل وعلا إذن سوى البات كقيب قادن كرسا نفترض كقيب قادن يسا حولها قاد كقيب قادن يسا علم قاد كقيب قادن يسا حوق قاد كقيب قادن يسا
hadaad waqti firaaqo leedahay imow masaajidkii caruurta yaryaray joogta diinta ilaahay bar haddaadan caruur lahayn xitaa adigu dadka jooga bar qur-aanka sidee u akhrisan lahayn iyo wixii la mid ah wahaakada waqtigaago dhan baa loo baahan yahay ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin noloshaada iyo geeridaada dhammaan waa inay noqoto aad ilahay ugu khidmaynayso wallahu aclam bisawaab جزاكم الله خيرا شيخ سؤال كلا وشيخ مصطفى كسعودة السلام عليكم ورحمة الله سؤال شيء وحي تهي دين أيان كلها ونا إديدي إنه إسيو محان سميا بسم الله دينك دوا حق كامقا حقا أنا دو قفك كديده تسيري كرات كل عسى كريسة أنا دمر شرعية و كاشتكيسيد أما عد قرابة سوق بنيسا أما أصحابتي سوق بنيسا عدي كلا كاسين كريسا أنا تكرر عيسو ويديسيد هذا صبر كرتنا آخر إيمان يسا يدبر بورنه بس كصبر والله أعلم جزاكم الله خيرا شيخ زا سؤال شنو فلنديس لقوا سو قري waxay leedahay dhalinyaro aad u badan ayaa waqtiyadan soo socda rabtay inay guursato maxaad sheekhu aad siin lahayd tala ah magaalada kaliya tan ogaa inay 10 taqriiban ay soo socdaan markaa sheekhu maxaad siin lahayd wax tala ah aroosku sidoo u dhici lahaa iyo tawjiihaad kale جزاكم الله خير sheekh suldaan la xiriira taladaydu ugu weyn tahay wallahu aclam جزاكم الله خير سؤال شكرا الشيخ مصطفى كسعودة وحلاداش وحوليه سائل كان الشيخ تضبط معلومات وان شقيا بويري صلاة هنا وحن كنت كذا شقدا لكن صلاة جمعة أيانا تكن كرينين أو أن كنت كن كرينين مسجد أرنكاس دينتم حيك قبتها ملاي بنانته جمعه واجب كسارا إلهنا القرآن كوحو كليه دي مالنتها الصلاة الجمعة لو أدمه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة وحقاد استكتغا يعني شغادة كتغا تضبا مال موت بدا دون شقيسان إساه جمعين هذا آخر وشقيستنا وذكري كارلاتي أدونك وحبا مطره تضبا دبادو كتغا جمعتو كذا دانتا تضبا دبادو اسكدايا وجمعتو كذا دانتا إذن وحان كليه وحويان حوكسو لكن وين حوكسدا مرمرسيه وماها إلهي عبادتي سنكتغي وين حوكسدا مرمرسيه وماها وإلهي قرآن كسي صريح وحوق ليه هدي صلاة الجمعة ليدن كيارو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع مركا مصطفى تلما هيه إلهي وركي سواكا والله أعلم بسم الله شيخ مصطفى سيدو الشيخ ويان جزاه الله خيرا طلبات وحنا إلهي سبحانه وتعالى سيكون كفالة قاضي وحنا أذيقا لغو ديري شقا لغو ديري صلاة وشقا لغو ديري رزقي قد رادين سيدنا إلهي سيكون كفالة قاضي سبحانه وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين حديث كان كوكب يا شيخ وحي هي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه وذكرنا إنه قفك كتجا سدح جمعة النبي وحير عليه الصلاة والسلام قلبي سوى حال وشها بديا من نفاق نمويان رواية قال كودنا إليهن شابد مذوب على قلفتا كلا بران على قلوبهم ما كانوا حرام وما بنانا والله أعلم جزاكم الله خيرا خير الجزاء جزاكم الله خير سؤال شنكله وحلالي وقف والده وحلي الشيخ وحربا عرورتيدا إن أن ماركتي أن ودنكي أن أدره si ay maaragtay diintii iyo dhaqankiiba ay dib u soo qabsan karaan maxaa tale ee aad isiin lahayd sheekh mustafa وعليكم السلام qofkii raba inuu khayr qabto dee talo uma baahna khayrku ku dhaqaaq wadanka laftiisana dhibaatooyinka qaar waa jiraan aan halkan oolin isaga laftiisuna dadaal buu u baahan yahay qofka marka la geeyo in lala dadaalo oo meel khayr qabta la geeyo dugsi khayr qaba la geeyo malcaamad khayr qabta la geeyo yani wuxuu dhigan lahaa lagu xidho mujarad in wadanka la geeyo wax badan waa bedelaysa laakiin waxa doonayso dhan ma wada bedelayso laakiin in wadanka gudihiisa laftiisa lala dadaalo oo macallin fiican iyo iskuul fiican iyo dhaqan fiican iyo meel wanaagsan la geeyo baa muhiim ah
marka ilaahayna bari dadaalla masalada salaadan dib ugu noqonaya quraanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa nabi la kala dooransiinayo inuu macsi sameeyo iyo inuu xabsi galo maaha inuu shaqo ka tagay inuu shaqo waayo iyo waxa maaha waa hal macsiyo weliba kuway naftu jeceshaya gabadhii boqoradda ahayd ee culimmadu yidhahdeen aad bay u qurux badnayd la sheego ayaa la yidhi gabadhaa la tumo oo la cayaar oo weliba la qasbaya oo isaga laga kafaalo qaatay doondoonistii iyo baabkaasi oo dhan la yidhi uun inaad gabadhaa u tagtuun baa lagaa rabaa bes hadday dhici weydo maxaa dhacaysa waxaa la yidhi xabsaa lagu dhigayaa xabsi caadiya maaha waa xabsi boqorku ku xidhanayo boqorrada waxaa lagu yaqaanaa dhulka ka taliyaan maxkamad iyo qaanuun iyo sanado iyo waxaas ma jiraan mar hadduu boqorku xidhay waa sida lagugu ilaabo waa meesha lagu dhigo idan inuu hal macsiya galo oo zina ah soo ma ogid in zinada la sameeyo in salaada laga tagaa ka weyntay salaada dambi weyn khamriga la cabo salaada laga tagaa ka weyn bal dilka iyo salaad ka tagista iyo ma weyn yani wax fudud ma salaadu dadka waxay isaga haystaan wax fudud oo iyada inta fara laga qaado maaragtay ilaahay waa ghafuurur rahiim wixii la doono la iska sameeyo ilaahay waa ghafuurur rahiim laakiin quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa nabi yuusuf oo doortay xabsi rabbi sijnu ahabbu ilaya mimma yad'unani ilayhi idan saalixiinta waxaa laynoo tilmaamaya hal macsiyo ay sameeyaan xabsi falabitha fi sijni bidca siniin ilahay yidhi buu doortay inaguna cidina ku xidhi mayse cidina ku dili mayse waa 2 saacadood oo aad shaqada fasax ka qaadato ama dee 7 shaqaysaaye maalintaada fasaxaad jimca ka dhigato ila 7 wadankan waajiba maaha in la shaqeeyaay adiga hunguri u shaqaysanaye waa maalintan aad tiraahdo uu fasaxayga waxaan ka dhiganayaa maalinta jimcaha 6 kale ku shaqeynaya wax ka xumaanaya ma jiraan marka qofka muslimka waxaan aad ugu la dardaarmaya ilaahay cibaadadiisu inaanay agtaada ku fududaanin oo shilimo saacad 2 saacadood oo aad 10 gildarmiyaha wixii euro aad soo shaqaysato inaad ilaahay jannadiisa siisanin oo aanay noqonin intaas inta janno ku weydaarinaysa wallahu a'lam جزاكم الله خيرا شيخ سؤال كله أو ربادة كسب سيسن وحولي سعيدك الشيخ سيدي لسكجا إلى لها وقت جن أدب ويرى أدب وعدكاتي ما دام الباب كستبعي كاسو جليسو وحشيجا سيد الدين أو كله أنبا إن ما رأيت قفكم مركا ولعق وبحن وايو وحلدل ساريو تاسم الدين بابولي وسؤال شو رئيسي عموما سيدي لسكجا إلى لنكرا يا خطر تيدا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الربض وحسهلا معها ذنوب تأدوا وين بين كم تاهي كبائر تواوين بكم تاهي النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا 7 الموبقات بورنا حديث البخاري ومسلم ورنيين اسكا إلالية ذنوب تقفك هلاكته وحاكم يدها أكل الربا الربا دي الله عنه حديث كل النبي وكنت المامي صلوات الله وسلامه عليه الربا ذا إن أي لا ذا هيقيبه sida shirkigu uu qaybsan yahay ribadu anwaac weeyaan aad u badan dhammaanteedana waa xaraam weeyaan cinda allahi jalla wacala nabiguna wuxuu inoo tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal aayadii qur-aankeed ilaahay ku sheegay fii suurati albaqara markuu ka warramayo qofka cuna ribada inuu u diyaar garoobay inuu la dagaalamo ilaahay iyo rasuulkiisa subxaanahu wa tacaala waxay ka mid tahay dunuubta qofka haddii uu cunaba markiiba uu diyaar u noqonayo inuu ilaahay la dagaalamayo jalla wacala bimujaradi saxiixa aad saxiixday ilaahay baad kula dagaalamaysaa jalla wacala in la iska ilaaliyo laga fogaado si allaaliya sidaad uga fogaan karaysid waxaadan ogeyn ee ku soo gala eedan cilmi u lahayn rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiinaa wa akhta'na laakiin waxaad ogtahay inuu ribo yahay inaad tirahdid maanta caalamka oo dhan baa ku dhaqma iyo wax laga kaaftoomi karaya ma aha iyo wixii la mid ah ma banaano
dad baad arkaysaa kaarkan xoqanayaa waa bixin doonaa buu leeyahay ama dhib male hadhow waa deen weeyaan hadhow sidanay noqonaysaa maya xaraam weeyaan ribadu noocyadeeda markuu nabigu ka hadlayana salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu oranaya wariba bidcun wa 70 shucba 7 qaybood weeyaan waxaa ugu sarreeya waxa weeyaan iyo waxa ugu hooseeya nabigu waa inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sida iimaankaba loo qaaxay iimaanka markuu ka hadlayay muxuu oranaya aliimaanu bidcun wa 60 shucba fi lbukhaari wa muslim lafdiga kale bukhaarina wuxuu oranaya aliimaanu bidcun wa 70 shucba calaha kalimatu laa ilaha ila allah waadnaha imaadatu lada can اطariiq walxayaau shucbatun min aliimaan xadiidkan kale nabigu wuxuu ku tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo uu leeyahay ribadu waa 72 ama waa 72 lafdiga kale waxaa ka mid ah waxa weeyaan oo ugu sarreeya inuu qofka walaalkii nasabkiisa wax ka sheego taasaa ugu sarreysa waxa ugu hooseeyana waxa weeyaan mithla an ya'tiya arajulu umma qofka hooyadii u taga waa nooca ugu hooseeya ribada weeyaan ugu fudud nabiga inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aad bay inoo adag tahay tii ugu sahlanayd tii ugu cuslaydna aad bay inoola fududahay ribadu marka inaad iska ilaalisid noocay noqotaba maxaa yeelay ilaahay baad kula dagaalamaysaa jala wacala ilaahay baad kula dagaalamaysaa subxaanahu wa tacaala dembiga isagaana wax fudud maaha culimada islaamkuna ijmaac bay ku yihiin inuu yahay kabiira min alkabaa'ir nabiguna waatuu inooga warramay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh naarta markuu tegay qoomkii ribada cunayay uu arkay waxa lagu samaynayo ilaahay uu ku ciqaabay subxaanahu wa tacaala wax sahlan maaha marka waa camal aad naar ku galayso ilaahay agtiina dagaal aad kaga jirto qof ribo qaatay oo qabow lama sheegin weligeedba waa karkaraya waa kulul yahay isagoo dhan weligiiba waa qiiqaa soconaya weeyaan in yar oo xalaal ah oo wanaagsan yaa ilaahay agtiina ka baraka badan subxaana wa tacaala adduunkana ka qabow qanaaca ilaahay subxaana wa tacaala inuu kugu siiyo ilaah baan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu xaraamtan inaga fogeeyo xalaashana inoo yasiro wallahu aclam bisawaab جزاكم الله خير الجزاء شيخ إن شاء الله لبس سؤالود أيان كسوق بقبين دونا بإذن الله سؤال شهوري وحي مصطفى كسوتا ilmo ayaan dhalay aanan awoodin inaan wanqal u sameeyo qaarkoodna way qaan gaadheen balse hadda waan awoodaa qaabkee ayaan ugu wanqali karaa oo sideen u sameeyaa buu leeyahay su'aalku جزاكم الله خير horta waqtigii way dhaaftay wanqalku dee qaab kala gedisan ma leh dad imka awooday oo aad rabto inaad ka wanqasho awalan markuu dhashay ee wanqashku ugu waajibtay haddaanad awoodin dee maad awoodin oo waajibku saaran maaha haddaad hadda rabto inaad ka wanqasho waa isaga kaa bannaantay sidee loo wanqalaya dee sidii awalba loo qali jiray haday gabadh tahayna neefkii qal hadduu wiil yahayna labadii neef qal ma wax cusub maaha yani laba neef oo xoolaa inaad qasho ama neef xoolaa inaad qasho wax cusub maaha kama gedisna kan 10 ama 12 soo gaadhay aad rabto inaad ka wanqasho kii hadda dhashay laga wanqalayay kama gedisna haddii aad rabto inaad ka wanqasho wallahu a'lam جزاكم الله خير سؤاشنا ayaan hadda ahaanan kusoo gabagabinaa insha Allah dhinaca baltoga ka timid waxay leedahay saa'iladu waxaan isguursanay sheekhow wiil si qarsoodi ah waxaanan laba wadanna waanu kala joognaa waxaanan rabnaa markaan isku nimaadno inaan waalidkaan u sheegno diintu taa maxay ka qabtaa bismillah arrintaa ma banaana guurka isagana ma ansaxayo labada meel ay kala joogaan inaan is arkin oo wali kulmin guurka ma ansaxayo waalidkii ha loola habto maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala calaa lisaani nabiyihi muxamed sala allahu alay wasalam wuxuu inoo jideeyey laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin nikaax maba jiro aanan ahayn mid soo mara labadii waalid iyo laba qof oo markhaati ah hadday labadii qof raalli iska yihiin shuruuddaasuu leeyahay maadaama labadan qof aynan kulmin nin iyo naagtiina aynan isu noqon waalidkii ha loo tago waalidkii ha bixiya gabadha maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa sidaa weeyaan xurmada waalidka uu leeyahayna weeyaan taacada waalidkana weeyaan waana awood ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala lagama qaadi karayo cid ka qaadi karaysana maleh wallahu aclam bisawaab
إن شاء الله جزاكم الله خير الجزاء دعير أن يرى إن شاء الله شيخ إنه نقصد بقولش مستوى جزاه الله خير قبل لو بقول يلا 20 يورو هذا سوق بسيف فاطمة محمود صلاح iyo gabadh kale oo waalid ah oo wiil haysata maarat wiilkaas oo madaxa laga hayo salaada mar walba uu jooga iyo masaajidka laakiin mar markas dambayso way ka sii daraysaa inaad labadooda ducaysid insha Allah jay insha Allah جزاكم الله خير شيخ إلهي سبحانه وتعالى أنت بكتها عافية أنت عافية ما تقبتنا هو زيادية أنت ربطها يستر ربطها الله كقاض أنت اللونسان الله ينوها نوني أنت حقك السجن الله كسي السجن ودنك يروح إنه كان من الله ينوي صلاحي قال يشركنا الله ينرافيه صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير إن شاء الله وحينا هذا قددي أي نوجو حكتا قددنا وحينا نوجو حكتا إن شاء الله وحويان إن جوزك صار نقلنا يا علماء